Bismillahirrahmanirrahim daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga SBS xarunta Muqdisho. Anigoo Nimca Cabdisalaan ah idin waramayso qodobada warka ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo xariga ka jaray xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Gudoomiyaha gobolka Banaadir oo ka hadlay muhiimadda xarunta waxbarashada ee gobolka Banaadir oo maanta xariga laga jaray. Soomaalida ku nool Minnesota oo munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo hooyo Nicimo Khaliif oo lix caruur ah laga qaatay ayay u sameeyeen magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan iminkana u diyaar garooba. markale daawadayaal ku soo dhawaada qodobadii oo intii hore ka faahfaahsan maxkamadda ciidanka qalabka sida oo xukun ku riday rag lagu eedeeyay inay dhac ka geysan jireen Muqdisho wariyaheena Aadan Macalin Aadaamo ayaa warkan inoo faahfaahinaya maxkamadda ciidamada qalabka sida oo u fariisatay dhageysiga dacwad ciqaabeed dhalinyaro loo haystay burcadnimo hubeysan ayaa ku kala riday xukunno kala duwan maxkamaddu waxay Cabdifataax Cabdi Jaamac Warsame ku xukuntay 8 sano oo xabsi ciidan ah sidoo kalena maxkamaddu waxa kale oo ay ku xukuntay Cabdirasaaq Maxamed Abshir Kheyre 5 sano oo xabsi ciidan ah halka Maxamed Cabdulqaadir Maxamed Cumarna la siiyo xurriyadiisa haddii uusan jirin dambi kale sida uu u sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida dhalinyaradan ayaa ahaa koox ka abaabulan magaalada Muqdisho amaba dhacna ku geysta bastoolada iyagoo isticmaalaya mooto bajaaj waxayna ay dilaan qofkii isku dhajiya agabka ay xilligaasi ka dhacayaan sida telefoonada lacagta kombiyuutarada iyo wixii soo raaca Aadan Macalin Aadaamo TV-ga SBS Muqdisho Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo xariga ka jaray xarunta wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre oo maanta xariga ka jaray xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya oo dib u dhis lagu sameeyay dad badan oo halkan jooga maanta waxa laga yaabaa inay arkaan wasaarad la dhisay oo la isugu yimid laakiin munaasabadan ahmiyadeedu way ka weyn tahay ahmiyadda munaasabadan ay leedahay waxay kala qeexaysaa kuwa wax dumiya iyo kuwa wax dhisa kuwa mustaqbalka raba iyo kuwa mustaqbalka diidan kuwa Soomaalinimada raba iyo kuwa aan la garanayn waxa ay rabaan kuwa isdhiiba iyo kuwa aan isdhiibin kuwa baabi'iyay rajada ama raba inay rajada baabi'iyaan iyo kuwa rajada iyo qalbiga dhisa halkan maanta iyadoo dad Soomaaliyeed iyo deeq-bixiyaal dawladda Soomaaliyeed garab taagan oo hormuud ka yahay wasiirka iyo shaqaalaha wasaaradda rag iyo dumarba in qoladii islahayd dadka Soomaaliyeed niyadooda jabiya loo diray fariintii hore ka culus waayo wasaaradii waxa loo dhisay si ka wanaagsan sidii ahayd markii ay soo weerareen haddii ay islahaayeen marka dadka Soomaaliyeed ayaa laga naxiyaa ama la qalbi jabiyaa ama hiigsigooda hoos loo dhigaa waxaan leenahay fariintii iyada ahayd waxaan idinkugu bedelnay fariin ah dadka Soomaaliyeed isma dhiibaan ma niyad jabaan lagama adkaado hiigsigooda kama tagaan marka ugu dambeysana iyaga guuleysanaya sida taariikhda ummadda Soomaaliyeed ay sheegtay dawladda Soomaaliya ayaa buuxisay dhammaan shuruudihii deyn cafinta waxaana IMF iyo Bangiga Adduunka ay bishan shaaciyeen in Soomaaliya ay mutaysatay in deynta laga cafiyo iyadoo looga sugayo in dhawaan lagu dhawaaqo go'aanka deyn cafinta
oo ay ka dhalanayaan fursado shaqo abuur ballaaran waxaana wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay muhiimad weyn u leedahay hogaaminta fursadahaas dhalinyarada Soomaaliyeed ee shaqada loogu abuurayo qaadayo mudane ra'iisul wasaare ayaan maalin dhaweyd wasaaradii waxaan ku sameeyay restructuring dib u habeyn ayaan ku sameeyay si ay uga turjunto una adeegto baahida dalka waxay ka koobnaan jirtay 11 waaxood oo aan u arkay inaysan ahayn inay markaas shaqadii loogu habboonaa dalka u hayaan marka waxaan ku soo koobay 6 waaxood ayaan ku soo koobay 6daas waaxood aan u arkay inay muhiimad u leedahay ee dalka u leedahay waxaan ku soo kordhinay Department of Occupational Safety Health Hazards oo aan rabnay inaan mataqaana aadan hoogelino in dalkan shaqaalaha Soomaaliyeed markay dhaawac gaaro iyo markay ay shaqeynayaan labadaba inay helaan goobo shaqo oo nabad ah ee ku shaqeeyaan mataqaana dib wax soo gaaraan meeshii wax ay xaqooda ku helaan laga helo marka waxaan kaloo sameeynay Department of Job Creation waxaan kaloo sameeynay Department of waxaan sameeynay Social Affairs Department of waxaan sameeynay Admin and Finance Department TVED oo Skills Development ahaa oo saldhig u ah wasaaraddan waxa ay qabato noqon doonto dilaahayno madaxweyne wasaare farxad bay maanta gooniye tahay runtii aniga inaan ku soo istaago aan maanta nagala soo qayb gashay kulankan nasiibkan u leenahay wasaaradda aad maanta xarig ka jirtay Nimca Cabdisalaan Maxamed SBS TV Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa ka hadlay muhiimadda xarunta waxbarashada ee gobolka Banaadir oo maanta xariga laga jaray wariyahana Maxamuud Dhaqan Nuur Gacma Dheere ayaa inoo faahfaahinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa xariga ka jaray xarun waxbarasho gobolka Banaadir oo muddo 30 sano kadib la hirgeliyay kaasoo qayb noqon doonto xaqiijinta adeegyada waxbarasho waxaana daahfurka xafiiska goobjoog ka ahaa hoggaanka dalada waxbarashada ee dalka xaruntan cusub ayaa lagu hirgeliyay degmada Xawaarweyne iyadoo ay ka kooban yihiin dhowr qaybood oo bixin doonto adeegyada waxbarasho ee gobolka Banaadir si loo helo waxbarasho tayo leh oo bilaash ah in laga baxo baahiyada waxbarasho ee taagnaa mas'uuliyiinta ayaa kormeeray xafiisyada ay xarunta ka kooban tahay waxayna kula dardaarmeen madaxda xarunta in ay dardargeliyaan horumarinta waxbarashada caasimadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamed Cumar Finish ayaa ka hadlay sida ay maamulka uga go'an tahay horumarinta waxbarashada gobolka Banaadir waa cusub oo ciida oo u bariyay ayay u tahay maantay maadaama waxbarashadii iskuulada iyo ciyaalka gobolka Banaadir ba maamulka lagu soo wareejinayo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ah isaga faahfaahin naga siin doona dadaalkii loo soo galay hawshan iyo waxyaabaha nala ka rabo annaga haddii aan nahay gobolka Banaadir iyo roolka dawladda ama doorka dawladda iyo anaga doorkeenu wuxuu noqon doona faahfaahin isaga na siin doona balse in badan oo badan ayaan anigu uga mahad celinayaa wasiirka dadaalkii aan waxba lala harin ee nafurka ahaa ee u galay suuragelinta arrintan waxaan sidoo kale uga mahad celinayaa dadaalkooda daladaha waxbarashada oo aan hubo wasiirka iyo daladaha iyo agaasimka waxbarashada gobolkuba inay dhammaantood ka warqabaan doorka waxbarasho ee reer Banaadir maanta ay ku sugan yihiin oo ah runtii wasiirka waxbarashada mudane Cabdullaahi Godax Bari ayaa faahfaahiyay dadaalka ay xukuumadda Soomaaliya ugu jirto sidii loo bixin lahaa baahiyaha waxbarasho ee dalka ka jira xukuumadda Soomaaliya waxay dadaal xoogan ugu jirtaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada dalka gaar ahaan caasimadda ka fuliyo dhowr mashaariic oo lagu xoojinayo adeegyada waxbarasho si carruurta ay u helaan fursad waxbarasho oo la mid ah tii bariisamaadkii mar haddii magaaladan ay tahay يعني ربع هذو سكبناين دتك سومالي وردن إن هالك كنوليين ما يشكلوا اللي قاعد كروا إن معمول قبلات نقطة دل كنا فدرال هدوية دتك أنتوا اللي بدنا هالك دقيقين قدالنا عن لون نقكرن ماشي اللي جوجنا اللي جوجي كرن
caqliga wuxuu sheegayaa in hore loo socdo halka meel oo loo soco karo oo qof kastoo siyaasiya qof kastoo wax maamulay uu fahmi karo waa in laga aadaa maamul goboleed aadadaas laga aadaayo dowladda dhexe ugama maarmayso in gacan ay ka geystaan shacabka gobolka banaadir xaqiijinta meesha laga aadayo meeshaas shacabkaasna ilaahay wuxuu u dooray guddoomiyaha ahna duqa magaalada inuu hogaamiyo broseeskaas oo meel marsiiyo waxaan hubaa inuu meel marsiin doono haddaba intaan ka soo gelayna annaga haddaan wasaaradda waxbarashada nahay maxay tahay siyaasadda waxbarashada ee ku abbaaran gobolka banaadir koow waxaan rabaa inaan qeexo in wasaaradda waxbarashada ay ka go'an tahay sida ugu dhaqsaha badan ugu xanuunka yar culayska ugu yar saari karo gobolka inaan waxbarashada gobolka ku soo wareejinno gobolka arrintaas arrin sahlan ma aha arrin mas-uuliyad weyn wadato waaye mana aha keliya iskuulaadka wasaaradda waxbarashada maamusho keliya in la wareejinayo waxaa la wareejinayaa wax walba oo la xiriiro waxbarashada ee laga dhex agaasimo gobolka banaadir maxamuud dhaqani nuur gacmo dheere tv-ga caalamiga SBS TV muqdisho xukuumadda Soomaaliya oo toddobaadka xuriyadda xariga ka jaraysa mashaariic horumarineed wariyaheena Shaafici Shaacir ayaa warkan inoo faahfaahinaya gudoomiyaha guddiga xuska 60 sano guurada xurriyadda iyo midnimada oo ay dhinaca taagnaayeen gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo maareeyaha wakaaladda dhismaha qaranka ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday in la weyneeyo xuska 60 sano guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliya ay xornimada ka qaadatay gumaystayaashii Talyaaniga iyo Ingiriiska gudoomiyaha guddiga xuska 60 sano guurada ahna wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta wasaaradda warfaafinta ayaa iclaamiyay mashaariic horumarineed oo laga hirgelin doono magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka guddiga qaran xuska toddobaadka xorriyadda iyo midnimada sanadka 2020 wuxuu ummadda Soomaaliyeed la wadaagayaa in dawladda Soomaaliya qorshaysay in la weyneeyo xuska sanadkan maadaama ay ku beegan tahay 60 guuradii xorriyadda Soomaaliya oo runtii muujinaysa waayeelnimo iyo xilkasnimo 60 jir markii qaran gaaro ama qof gaaro sidaas awgeed dawladda Soomaaliya waxay go'aamisay in xorriyaddaas oo runtii la weyneynayo soo kabashada dalku soo kabanayo iyo sidaan sheegay muhiimadda ay leedahay in 60 sano aynu xor ahaano waxay ku maamuusaysaa in dalka laga hirgeliyo mashaariic badan oo dadka Soomaaliyeed lagu abaabulo inay dalkooda oo muddo dagaalo sokeeyo iyo burbur u ka jiray dib u dhistaan lagu abaabulo dawladuna intii karaankeeda ee ugu badan ay ka qayb qaadato inay dib u dhiskaas dalka iyo qurxinta dalka ay mas'uuliyaddeeda qaato oo annagoo kaashanayna gobolka Banaadir iyo ummadda Soomaaliyeed qof kasta oo xilkasa ganacsatada Soomaaliyeed waxgaradka Soomaaliyeed jaaliyadaha Soomaaliyeed inaanu isku dayno dawlad ahaan annaguna aanu qaybta ugu weyn qaadano in dalka wajigiisa la qurxiyo dalka dib loo dhiso waxaynu gacmaheena ku burburinay dib u dhisno tusaale ahaan gobolka Banaadir oo ah caasimadii dalka xaruntii Soomaaliyeed dawladdu mashaariic waaweyn ayay ka wadaa oo la daahfuri doonaa ama xariga laga jari doonaa marka la gaaro toddobaadka xorriyadda oo ay ka mid yihiin golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka National Theatre oo ku jiro madxafka qaranka maktabadda qaranka Stadium Muqdisho fagaaraha midnimada oo laga hirgelin doono bartamaha magaalada Muqdisho meeshii hore u ahaan jirtay baarlamaankii hore iyo barxadaha ku wareegsan beerta xorriyadda Independence Park oo laga hirgelin doono degmada Waaberi guryihii wakaaladda kalluumaysiga
wajahad qurxoon iyo beer quruxsan oo loo samayn doono airportka caalamiga ee Aadacadda International Airport oo laga hirgelin doono meesha uu hadda ku yaalo saldhigga booliska iyo meelaha ku wareegsan agagaarkiisa beer iyo goobo lagu nasto oo laga samayn doono sidoo kale airportka Aadacadda International Airport dhulka u dhaxeeya airportka iyo guryaha Soomaaliya Airlines. ugu dambeyntii wasiir Maareeye ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan in la baneeyo guryaha dawladda si dib u dhis loogu sameeyo maadaama burbur uu soo gaaray. Shaafici Cabdinaasir Maxamed, Shaafici Shaacir, SBS Muqdisho. guddiga xuduudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan wada tashi ah la qaatay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. wariyahana Muniir Kaskay ayaa warkan inoo faahfaahinaya. ururka haweenka qaranka ayaa magaalada Muqdisho kulan kula yeeshay guddiga xuduudaha dalka kaasi oo talooyin lagu siinayay guddiga oo ay wadaan dadaalo ku saabsan xoojinta xuduudaha. gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheekh Axmed Gaballe ayaa kulanka ka sheegtay in ay la shaqayn doonaan guddiga si loo guuleysto waxyaabaha looga baahan yahay in uu qabto guddiga. waxaan idin la wadaagaynaa waxa aad dalka u haysaan in wixii tala iyo tusaale aan ku leenahay aan ka geysano iyo wixii wax qabad oo aan ku leenahay aan ka geysano maadaama haweenka Soomaaliyeed ay meel kasta oo dalka kamid ah ay joogaan diyaarna u yihiin horumarka dalka iyo dib u soo celinta qarannimada iyo amniga dalka. gudoomiye ku-xigeenka guddiga xuduudaha heer federaal Xuseen Xaashi Xasan oo ka hadlay kulanka ayaa tilmaamay in ay sii wadi doonaan kulamada ay la yeeshanayaan haweenka maadaama ay yihiin lafdhabarka bulshada loona baahan yahay in kaalin ku yeeshaan dadaalada ay wadaan ururka. ururka haweenku waa urur qaran oo muhiim ah oo waxa weeye haweenku waxay joogaan gobolladii oo dhan bay joogaan degmooyinkii bay joogaan tuulooyinkii bay joogaan annagu waxaan rajaynayaa natiijo fiican oo qaranka wax u tarta oo taariikhi leh oo muhiim ah oo dalka iyo dadka dhaxal u noqoto inay ka soo baxaan. kulamada noocan oo kala oo ay guddiga xuduudaha heer federaal ee la yeeshaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa qayb ka ah dadaalada lagu ilaalinayo xuduudaha. Muniir Muuse Bujeeti, Muniir Kaskay, SBS Muqdisho. Soomaalida ku nool gobolka Minneapolis oo munaasabad ballaaran oo lagu taageerayo hooyo Naciimo Khaliif oo 6 caruur ah laga qaatay ugu sameeyeen magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. mar kale wariyahena Shaafici Shaacir ayaa warkan inoo faahfaahinaya. munaasabad lagu taageerayo hooyo Naciimo Khaliif oo caruurteeda ay ka qaadeen hay'adda badqabka caruurta dalka Mareykanka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Minnesota ee dalkaasi Mareykanka. xafladan ayaa lagu garab istaagayay hooyo Naciimo Khaliif sidii ay ku heli lahayd caruurteeda. waxayna dadkii ka soo qayb galay munaasabada ugu tabaruceen wixii ay awoodeen iyagoona ka codsaday dhammaan dadka Soomaaliyeed in ay taageeraan caruurta agoonta ah. waxaa munaasabada ka hadlay aqoon-yahan Axmed Aadan Cirday oo kamid ah ehelada Naciimo Khaliif wuxuuna ka warbixiyay taariikhda kiiskan. hadaladiisina waxaa kamid ahaa taariikhda wadankan madowga calibaysteynka Meksikaanka caruurtooda la iska qaadan jiray. kontonkii sano ugu dambeeyay bilaabeen inay ka gilgishaan oo diidaan in caruurtooda xoog lagu qaato. annagoo hadda iska nimid hawshaan lama soconin hadday nagu bilbilaabaan haddaanan ka horteginna cawaaqib xumadeeda yeelan doontaa. tan haddaan ka sii jeesanno oo ka seexanno kuwo badan baa ku xigi doona. wallaahi caloosha ay xanuunto markaan arko because hooyo 6 caruura mid naaska nuugay laga qaatay waa garan kartaa xanuunka ay leedahay. marka waxaan idin barayaa Naciimo Khaliif adeer istaag. ilaahay waxaan ka baryaa inuu caruurtaadii kuu soo celiyo. ilaahay waxaan kuu baryaa iyagoo nabad qaba iyo adigoo nabad qaba inuu soo kiin celiyo. macalin Maxamed Cabdullaahi Ambaasa oo wakiil ka ahaa maamulka waalidiinta ku xiran masjidka Abubakar Islaamu Center ayaa ku wareejiyay dadkii qaban qaabinayay
munaasabada 10,000 oo doolarka Mareykanka ah. fariintani markiina soo gaadhay as community-ga masaajidka Abubakar Siddiq Islamic Center waalidiinta ku soo tukata jamaacadiisa maamulkiisa waxaan isla garanay inaanu garab istaagno duco oo ta ugu horeysa iyo dhaqaale insha Allah taala waxaan ka qayb qaadan karno sida awgeed waxaan hadda ku wareejinaynaa $10,000 insha Allah tabaaraka wa taala. munaasabada dadkii ka soo qayb galay oo u badnaa culimo awdiin ayaa Ilaahay uga baryay inuu ilmaheeda u soo celiyo hooyo Naciimo Khaliife. Soomaali wuxuu ku maamulaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro marka waa nin walba waa ka dhawaajiyay hadda labada qof oo iga horeysay dhaqaale loo baahan yahay taas awgeed insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa oo hadduu Ilaahay yiraahdo kulligeen bina u wada kacno gabadha walaasheena kurbada Allah ka dulqaado inagana meel aan joognaba Allah ina xifdiyo waxaan u ducaynayaa dhammaan intii wax ku bixisay ama xoog ha ahaato ama lacag ha ahaato iyo inta ku bixin doonta insha Allah taala Ilaahay subhanahu wa taala waxaan weydiinayaa waxay taageereen waa caruur agoona in Ilaahay subhanahu wa taala uu guryahooda iyo caruurtooda uu u geliyo in kasto wax ku bixisay inta bixin doontaba waxaan si khaas ah u ducaynayaa Axmed Jaamac Cirdi oo runtii ah ilaa maalintii caruurta la qaatay ilaa maanta shakhsiga kaliya aan oran karo habeen iyo maalin kama uusan seexan 22 bishii Janaayo ayay ahayd markii ilmaheeda lagala wareegay hooyo Naciimo Khaliife mana ahan markii ugu horeysay ee sidan oo kale ilmaha looga qaato hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka. Shaafici Cabdinaasir Maxamed Shaafici Shaacir SBS Muqdisho. qodobkaas ayaa u dambeeyay warkii aad kala socoteen SBS TV Muqdisho anigoo Nimca Cabdisalaan Maxamed in la socodsiinaysay intaan warka xiga dib hawada ugu kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida iyo amaan Allah.